Farax Macalin waxa uu leeyahay taageero ballaaran oo gudaha qoyskiisa iyo shacab weynahaba hogaamiye muddo dheer xildhibaanka ah gudaha dalkani Kenya waaye oo aad looga yaqaano geeska Afrika iyo gudaha dalkani Kenya haddana xildhibaana Nasir Dolaal Jofle waa ninkii laga guuleystay doorashadii aan soo dhaafnay 3,000 oo cod baa looga guuleystay Aadan Barre ayaa kaga guuleystay doorashada la soo dhaafay Mijadeeqoona waa ninka hadda marka uu wado Aadan Barre waa uu sheegay Aadan Barre yiri ninkan baan u doonaynaa islaan aan u horusinaa oo kala jeedo deegaan baarlamaneedka Garissa Township ayaan doonayaa ninkan inaan ku wareejiyo marka martii uu ahaa ila jooga Eunice Deco oo ah khabiir dhanka isgaarsiinta iyo waliba maamulka iyo maareynta warbaahinta sidoo kale waa qoraa waa wariye aan soo dhaweeyo Eunice inoo soo dhawo subax waxaan wanaagsan ayaan ku leeyahay mid la mid ah Sulaymaan adiga iyo dhageystayaashaba waa idin salaamaya aad baad u mahadsan tahay Eunice haddii aan ku hormaro wax yar haddaad mar kale iskaaga barto inkastoo aan ogahay barnaamijka midkii kugu horeeyay ma ahan laga yaabo dhegeystayaal cusub saakiin inay dhegeysanayaan marka haddaad hogaho isu sheegto Eunice Deco ama Eunice Deco miday noqotaba waa wariye ku hadla afafka Soomaaliga, Ingiriiska, Swahiliga iyo Faransiiska inta badan ka howlgala gudaha dalkani Kenya iyo dalka Soomaaliya iyo jamhuuriyadda iskeed isugu dhawaaqay madax banaanida ku dhawaaqday ee jamhuuriyadda Somaliland marka waa nin reer Kenyana oo reer Garissa reer Wajeerna labadaba marka bulxadaan iyo suqumjinga labadaba registration-kayga waa laga saxay waa gartay aad u mahadsan tahay xilli hore ayaan ku soo kicinay waqtiga qaaliga waan kaaga mahadnaqaynaa Garissa doorasho ku celisay ka bilowday 12 saakay soo bilowday ugu horeyn horta qofka codeynaya maxaa laga rabaa qaab nooc ah rabaa inuu u codeeyo horta doorashadan waa doorasho ku celisa waxaa kursiga ka baxay xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo loo magacaabay wasiirka difaaca dalkani Kenya kadib markii uu ka baxay nafaaskaas ayaa doorashadan ku celiska lagu laabtay waa kii doorashadii dalka ka qabsoontay loo codeeyay kursigan sanadkii 2017 oo ilaa 9,000 iyo dheeraad cod uu helay musharaxii ku guuleystay doorashada 2022 waa Aadan Barre Ducaale qofka codbixiyaha ahi wax lagaga baahan yahay waa inuu haysto kaarka aqoonsiga lagu aqoonsan karo inuu qofkan isaga yahay intaas kaliya mar haddii lagu aqoonsado waxaad fursad u helaysaa inaad codeyso markaad codeysana inaad galbato ayaa la doonaya sida haddaba wariyaha Iftiin FM ee magaalada Garissa uu inoo cadeeyay baaqyada ka imaanaya hogaamiyaasha iyo madax dhaqameedyada in dadka markay codayaan ay guriyahooda ku laabtaan dhanka iyo warqada ayaa jirto musharaxiinta kala duwan ay ku qoran tahay oo la siiyay qofka codeynaya warqadaasi sidee la rabo qofku inuu sameeyo inuu saxo calaamad noocee laba calaamad bay noqon kartaa inuu saxo iyo in uu cross geliyo calaamada islaab uu geliyo labadaba waa isku mid ay noqonayaan oo qofka hadduu codeeyo waa sida IBC ay raacsan tahay marka qofka markii la aqoonsado kadib waxaa la siinayaa doorashadii 2022 bishii 8aad waxaa loo codeynaya ilaa 6 musharax haatan doorashada ku celiska waxaa loo codeynaya hal musharax oo kaliya oo xildhibaanka bartamaha magaalada Garissa marka waxay noqon waa mid fudud baan isleeyahay waayo qofku hal warqad baa la siinayaa dadkeena intooda badan ayagaba ma saxdaanba oo warqada iskulaabka iyo sixitaankaba inta badan way sheegtaan qofka ay rabaan kadibna waa loo saxaa iyagoo arkaya maadaama ay literacy rate-ka inagu badan tahay dadka aan waxba qorin iyo aan aqrinin ay inagu badan yihiin waa gartay marka doorashadan ku celiska ee Garissa maanta ka dhacayso muhiimad noocay ay leedahay muhiimad weyn bay leedahay waa Garissa deegaan baarlamaneedkan waa deegaan baarlamaneedka la dhihi jiray Dojis waxaa sameeyay madaxweynihii hore
dalkani Kenya, Daniel Toroitich Arap Moi. waana bartamaha magaalada Garissa oo ah xarunta gobolka Waqooyi Bari, horeyna u ahayd xarunta waagii taliska maamul goboleedyada ay jireen. xarunta gobolka Waqooyi Bari ayaa ahayd oo halkuu fariisanayay provincial commissioner-ga, madaxa gobolka iyo madaxda ammaanka iyo madaxda sirdoonka oo dhan. marka magaalo muhiim oo istaraatiiji ay ahayd, welina waa ay tahay. waa halka laga galo gobolka Waqooyi Bari. marka waa goob deegaan baarlamaaneed muhiimad weyn u leh dowladda iyo dadka gobolka Waqooyi Bariba. muddadii hadda lasoo dhaafay 20 sano u dambeeyeyna dadka ka soo gala deegaan baarlamaaneedka waxay ka mid ahaayeen dadyowga si firfircoon ama wasiiro noqday ama xilal kala duwan soo qabtay muddadii ay kursiga hayeen. inkastoo xil hore ay tahay 2 saac iyo 30 daqiiqo kaliya ay hadda ay furiyin goobaha codbixinta, haddana wararka waxay sheegeen in dadka goobaha codbixinta hadda jooga safafka ku jira in dad aad u kooban ay yihiin. badanaana doorashooyinka ku xiliso markay dhacayaan dadka doorasho soo baxa aad bay u hooseysaa. sababtu maxay tahay? sababtu waxay tahay xiisadda dadkii badnaa ay doonayeen dadkan inay codayaan ayaa meesha ka maqan. dad qaar baa maaragtay ku dhiiranaya inay aad u jeclaan inay governor doortaan, maadaama marka dastuurkan uu xaq u siinay inuu 6 qof doorto, sidii buu 6dii qof ku dooranayay. mid baa madaxweyne rabay inuu doorto, mid baa senator kali taageerayay. laakiin dad qaar baanan danayninba. dad qaar baa siduu sheegay wariyaha idinka howlgala magaalada Garissa ka maqanba magaalada, fasax maaha sidii doorashadii guud ee dalka ka dhacday. marka siyaabahaas ayaa keeni kara in ay yaraato. ha yeeshee way ka fududahay, way ka raqiisan tahay inaad codayso, maadaama hal qof un loo codaynayo, hal warqad un lagu siinayo. marka dadka na dhageysanaya oo jooga deegaan baarlamaaneedkaas Garissa oo weli aanan codaynin, waa muhiim, waa xaqa dastuuriga inaad maaragtay u codayso hogaamiyaha aad doonayso. walow ay dadka falanqeeya siyaasadda iyo ay mar walba ku doodaan in doorashada ku celiska ay tira ahaan yaraato. marka haddii aadan barre uu 9,000 oo cod ku soo galay doorashadii aanu soo dhaafnay, haddii la dhaho marka tirada dadka way yaraanayaan, marka qofka 6,000 buu ku soo geli karaa. marka waa arin teeda leh, waana deegaan baarlamaaneed codad fara badan leh, codbixiyaal fara badan leh. ilaa jarjara baa laga codayaa, ilaa waxaa laga codeynayaa korkora, ilaa waxaa laga codeynayaa galbeed, ilaa Moodkari korkeeda. marka waa deegaan baarlamaaneed aad u weyn. koley waana subax hore hadda 2 saac bar weeye. waxaan aaminsanahay in tirada ay kordhi doonto. dadkana waa lagu wacyigeliyey, waana lagu baraarujinayay ololo weynna oo aanan mardhow ka dhicin magaalada Garissa waa ka dhacay xilligii doorashada hadda ololaha lagu jiray. isla arrimahaasi ololaha doorasho aad u adkaa, aad u xiiso badnaa, aadna heerkulkiisa u sareysay ayaa Garissa maalmihii lasoo dhaafay laga dareemayay. aan ku hormare wasiirka wasaaradda arrimaha difaaca dalka Aadan Barre Ducaale ayaa la arkay magaalada isagoo dadka qaybaha kala duwan, qowmiyadaha kala duwan si gooni ula kulmayo. baraha bulshada naftarkeeda dadka uu taageeradu ku leeyahay iyo dadka kale ee ku xiran uu ku soo bandhigay meelaha uu tagay iyo sababta musharaxa uu wato oo Meja Deko in loogu codeeyo. markaad eegto muxuu Ducaale doorashadan ololaha doorasho si toos ah uga qayb galay, maxay tahay inuu u soo hoyo guusha madaxweynaha dalka William Ruto oo isku xisbi yihiin, maadaama isaga uu u magacaabay xil wasiir. marka mas'uuliyad baa marka isaga ka saaran inuu kursiga u keeno madaxweynaha si aqlabiyadda baarlamaanka ay weli u sii lahaadaan, uuna u muujiyo madaxweynaha in uu saameyn ku leeyahay siyaasadda maamulka Garissa. arrimaha saameynta gobolka county Garissa guud ahaan gobolka Waqooyi Bari ayaa la leeyahay hadda tartan adag waxa uu uga dhaxeeya Ali Ibrahim Rowe oo governorka senatorka county Garissa Mandera, horeen u soo ahaa governorka countyga Mandera. waxaa tartanka ku jira musharax Nasir oo ah
tikitka xisbigiisa ayuu ku tartamayaa tikitka xisbiga UDM oo uu gudoomiye uu ka yahay cali ibraahim rooba naasir maxamed dolaal isaga iyo Major Deko horta aan ku hormaray tanal rooba ducaale oo nuumaan doonaay ayaa ahaa dadka aad uga cadcadahay iyadoo ay jiraan musharaxiin kale oo 4 ah labadan maxay musharaxiinta kale ay ugu duwan yihiin maxay hadalhaynta dhankooda ay ugu badneed Nasir Dolaal Jofle waa ninkii laga guuleystay doorashadii aan soo dhaafnay 3,000 oo cod baa looga guuleystay Aadan Barre ayaa kaga guuleystay doorashada la soo dhaafay Major Deko waa ninka hadda marka uu wado Aadan Barre waa uu sheegay Aadan Barre yiri ninkan baan u doonaynaa islaan aan u horusinaa oo kala jeedo deegaan baarlamaneedka Garissa Township ayaan doonayaa ninkan inaan ku wareejiyo marka labadaas maadaama ay ninkaana ninkii ku xigay uu ahaa ninkaana ninkii kursiga ka baxay uu wato sidaas ayaa keenaysa labadooda inay ugu cadcadaadaan doorashadan ku celiska ee ka dhacaysa ismaamulka Garissa wasiirka difaacana aad ayuu olala ballaaran u galay oo ka sameeyay weli ma aragtay xilli uu safaro fara badan ku jiray mar uu wadamada ciidamada Kenya ee Soomaaliya ku sugan uu tago mar uu Muqdisho gaaro mar uu Djibouti tago hay'ashay weli campaignkii iyo howlihii ololaha doorashada waa uu ku jiray muddadaas iyada marka waxaad moodaa inay isaga ka go'an tahay inuu kursigan uu u soo hoyo madaxweynaha dalka William Ruto halka sida sheegtana ay isla xifaaltan hadda ka dhaxeeyaan governor hore ismaamulka Mandera Senator Ali Roba oo isna xisbigiisa ninkii isaga ku soo xigay doorashadii aan soo dhaafnay uu taageerayo marka isagoona rabo inuu kaga dhawaado madaxweynaha dalka hagaag dad baa doorashada waxay leeyihiin Nasir Dolaal iyo Major Deko oo hadda loo arko inay labada qof doorashada u dhaxaysaba way ka weyn tahay waxay u dhaxaysaa Ducaale iyo waliba Cali Ibraahim Rooba doodaasi iyo dadka sida u fikiraya maxaa ka jira horta codbixiyaasha ayaa go'aanka kama dambaysta iska leh codbixiyaha magaalada Garissa jooga maanta kii codeeyay kii aanan codeynin oo hadda ma aragtay rajeynaya inuu goobaha codbixinta tago uu codeeyo qofkaas ayaa iska leh go'aanka kama dambaysta dadkan kale waa olola iyo isbahaysi iyo wada shaqeyn inay ku soo jiitaan dadweynahan codeynaya ha yeeshee sidaan yara taabtaba maadaama xisbiga UDM Nasir Dolaal wuxuu ka tirsanaan jiray xisbiga ODM oo uu ka baxay oo uu tagay xisbiga UDM maadaama ODM haatan uu yahay mucaaradka UDM-na ay ka mid tahay xisbiyada isbahaysiga Kenya Kwanza ka tirsan haatan waxaad moodaa in isna uu taageero markaa ka yara rabo dhanka iyo madaxweynaha maadaama ay isku xulufan yihiin oo sida ay ka dhacdayba gobolka Western Kenya oo doorashadii ku celiska ahayd xisbiga UDA ay lahaayeen musharax ha yeeshee uu ku soo baxay kursiga Ford Kenya xisbiga Moses Wetangula afhayeenka baarlamaanka dalkani Kenya marka Ali Roba waa hogaamiyaha xisbiga UDM isna wuxuu rabaa inuu ma aragtay u muujiyo uu tuso madaxweyne ku-xigeenka dalka inuusan saameyn ku lahayn Mandera kale oo kaliya ha yeeshee uu saameyntiisa gaarsiisan tahay Soomaalida dhan ilaa dadka kushitiga ilaa maadaama ilaa UDM lagu soo doortay governaha ismaamulka Marsabit marka saameyntiisa ayuu rabaa inuu sii xoojiyo haddii u suurta gasho uuna kaga ag dhawaado madaxweyne ku-xigeenka dalka madaxweynaha dalka uuna maaragtay heshiisye cusub iyo taageero ay u sii muujiyaanba xisbigiisana sidaa kusii ballaarayo halka wasiirka difaacana uu doonayo in kursigan uu helo qof isaga maadaama kursigiisa ka baxay isagana horey ugu soo guuleystay qof xisbigiisa ka tirsan oo Major Deko isna xilka gobornimada u tartamay ilaa 16,000 oo cod helay doorashadii hadda aanu soo dhaafnay marka
waxaad moodaa labadoodaba in ay dadaal dheeriya hadallana way isweydaarsadeen oo mar ay meelo ka hadlayeen labada hogaamiyaba mid walba kan kale isagoo ugu goodinaya sida uu ugu guuleysan doono doorashada maanta ka qabsoomaysa ismaamulka Gaarisa. marka natiijada caawa ama beri subax lagu dhawaaqi doona qofka ku guuleysta kursigan Garissa Township ma lagu qiimeyn karaa saameynta ay hogaamiyaashan Aadan Bare Ducaale iyo Ali Ibrahim Booba ay gobolka ku leeyihiin? si weyn dhaqaalaha galay hadda fiiriso social media dhaqaalaha galay ololaha isku keenta dadkan maadaama ay hogaamin walba la kulmayay qaar ka mid ah beelaha deegaan baarlamaaneedkaas iyo qoysaska iyo dadiyowga meelaha degan maadaama ay la kulmayeen waad arki kartaa waxa qarash iyo lacag galay maadaama waxay u baahan yihiin waxaan planning marka waxaan noo wada dhaqaalay marka dhaqaalaha galay marka aragto lamid maaha dhaqaalihii 2022 waxaad moodaa inay isku sii yihiin dhaqaalihii galay 2017 xilligaas oo loolanka aad u adkaa Faarax Macalinna uu ugu tartamayay xisbiga Wiper doorashada deegaan baarlamaaneedka Garissa Township. hagaag Faarax Macalin soo hadal qaday Faarax Macalin naftirkiisa oo la doorasho ku jiray wuxuu u durbaantumayay musharaxa xisbiga UDM Nasir Dolaal taa iyana saameyn noocee ay taageerada Faarax Macalin ay ku yeelanaysaa doorashada maanta ay dhacayso? Faarax Macalin waxa uu leeyahay taageero ballaaran oo gudaha qoyskiisa iyo shacab weynahaba hogaamiye muddo dheer xildhibaanka ah gudaha dalkani Kenya waaye oo aad looga yaqaano geeska Afrika iyo gudaha dalkani Kenya haddana xildhibaana tan iyo 90-meeyadii dhowr jeer xildhibaan noqday ku-xigeenka afhayeenka baarlamaanka hore u soo noqday marka naftirkiisa saameyn way ku yeelanaysaa taageeradan uu si waafaqsan u taageeray ha yeeshee si la mida waxaa taageeray Mejadeqo dad ay ka mid yihiin Engineer Maxbuub dad ay ka mid yihiin xildhibaankii hore Dadaab Dr. Dahiye xildhibaankii kaga horeeyay Faarax Macalin kursiga isaga maanta marka in taageerada labada dhinacba waxaad moodaa in ay isku si maaragtay dad culus ay ku jiraan dad culus labada dhinacba ay taageero si buuxda ay u kala helayaan marka kulli codbixiyaasha waa la hadlay cid walba si gooni waa la hadleen marka waxay go'aansadaan baanu arki doonaa saacadaha soo socda. hagaag isla arrimahan ololaha doorashada intay socotay waxaa jiray falal amni darada siba mid ka mid ah musharaxiinta oo hadda aan ka hadlayno Nasir Dolaal in gaari uu leeyahay la xabadeeyay oo ina xaalad kacsanaan dhanka ammaanka iyo cabsi dadka ay ku beertay taa ka waran. Booliisku wax tafaasiil dheeraad kama bixin howsha iyo baaritaanadii wixii ka soo baxay qisada iyada ah ha yeeshee hogaamiyaasha way cambaarayeen arrinta shaqaaqana way ku abuurtay dadka deegaan baarlamaaneedkaas cabsi aanan jirin way soo wajahday laakiin laamaha ammaanka sidii ay shalayba ay u xaqiijiyeen warbaahinta waxay iyaga sheegeen inay mas'uuliyadda ammaanka qaadanayaan uguna baaqeen codbixiyaasha inaysan ka baqin kana welwelin wax liddi kuwa ammaanka oo iyaga dhankooda soo gaara. isla arrimaha la xiriira ololaha doorashada maanta dhacaysa ka horeeyay waxaa soo baxay warar ku saabsan in doorashada u dhaxayso Dynasty iyo waliba Xasala sila mid ah doorashadii weynadan ka soo gudbay madaxweynaha wuxuu ku tartamayay inuu yahay musharaxa dadka xoogsatada ama Xasala hadda Garissa dhinaca UDM hadii aan ku hormaro waxay leeyihiin Mejadeqo qoyska Garissa Township soo talinayay taladeedii hayay ka soo jeeda Garissa dadweyne kale fara badan ayaa degan ayagoo tusaale soo qaadanay Ducaale 15 sano haystay ninka Ducaale isaga ka horeeyay 30 sano oo kale haystay Mejadeqo ayaa hadda tartanka ku jira walaalkiya dhinaca kalena waxay leeyihiin dadka kale Mejadeqo taageersan waxay leeyihiin arrintan qoysku ma saabsan qof hogaanka iyo kartidana waa wax ku saabsan qofka shakhsiyadiisii dooda ka waran.
waxaa jirta dood dabaaqadii mise horaantii bishan inay ahayd bano mise dabaaqadii sanadkeenu soo dhaafnay lagu qabtay Garis oo shirkad warbaahin kulan post la yiraahdo ay soo qaban qaabisay. waxaa ka mid ahayd arrimihii ay siyaasiyiintii halkaa joogay ay soo hadal qaadeen, gaar ahaan Ibrahim Malo iyo Cabdikariim Cusmaan Rati, oo iyaga maaragtay yiri isku reerna ay yihiin. Soomaalida siiba codka waxay ku codayaan qaab qabaayil weli oo qaab odayaal dadku ku soo qaadayaan, walow ay dadka qaar ku soo galeen odayaal aan soo qaadin oo kale sida Aadan Bare 2022. laakiin Ibrahim Malo iyo Cabdikariim Cusmaan Rati dooda markay dhacaysay dood bay ka keeneen arrinta, iyagoo maaragtay leh Garissa waa in loo sinaadaa oo dadka degan ay fursad loo siiyo inay u codayaan qofkay doonayaan, aanan lagu qasbin shakhsiyaadka iyaga ay u codaynayaan. marka taa iyada naftirkeeda waa waxyaabaha ay siyaasiyiinta ku doonayeen codadka codbixiyaasha. taas iyo arinta dhulka iyo arinta biyaha, saddexdaas arrimood ayaa ugu waaweynayeen doorashada sanadkan siyaasiyiinta waxyaabaha ay ku ololeynayeen. arrintan aad sheegtay dynastigana waxaa aad maaragtay u hadalhayay oo rabay in aysan sii soconin, maadaama kursigan markii la asaasay wuxuu Xuseen Mandela muddo dheer uu soo hayay, kadibna Aadan Bare uu hayay, haddana haatana Meja Deeqo waa Xuseen Mandela walaalkii in uu la wareego kursiga ayay aad u mucaaradsanayeen. Cusmaan Rati waa xildhibaankii hore deegaan baarlamaaneedka Faafi. marka waxay ka mid ahayd arrimaha dooda dhalisay, aad bayna uga hadleen siyaasiyiinta warbaahinta iyo banaankaba markay codbixiyaasha la hadlayeen. marka doodaasi saameyn noocay ay ku yeelan kartaa musharax Meja Deeqo, faa'iido noocay ay u yeelan kartaa musharaxiinta kale, ama saameyn noocay iyo faa'iido noocay? saameyn way ku yeelan kartaayo Raila Odinga waxyaabihii uu ku waayay inuu helo codbixiyaal gobolka dhexe ee dalkani Kenya waxay ahayd in arinta dynastiga Uhuru Kenyatta oo ay ka soo horjeedeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta gobolkaas, in maaragtay labada nin ay yihiin laba nin oo ay dhaleen madaxweynihii ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay, madaxweynihii ugu horreeyay iyo madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyay ee dalkani Kenya. marka saameyn bay ku yeelatay. waa kii doorashadii uu ku guuleysan waayey, ayna ku guuleysteen doorashadii kuwii haslaaga ahaa ee doodooda ahayd anaga waxaan u taaganay dadka masaakiinta iyo dadka maaragtay aanan waxba haysanin iyo dadka meel cidlaa nolosha kasoo bilaabay oo haatana heer ka gaaray. marka saameyn waa laga yaabaa inay ku yeelato. qaar ka mid ah codbixiyaashana ay taas dareen ahaan qaado, sidaasna ay ugu codayaan shakhsiyaadkan kale u loolamaya kursigan bartamahaas maamulka Garissa. su-aashaan ooga baxayo arrimaha ololaha doorasho ee Garissa ka dhacay waxay tahay sidoo kale waxaa soo baxay project musharaxiinta ka hor imaadsan Meja Deeqo ha u badnaadeena kuwa UDM waxay lahaayeen Meja Deeqo waa project oo ducale wata, laakiin musharaxiinta kala dhamaan qof walba qof ayaa wata, laakiin taggan project Meja Deeqo ay u raacay. sababta maxay tahay iyadoo Naasir Dolaal Ali Rooba xisbigiisa uu ku jiro xitaa Meja Deeqo ololaha Aadan Bare uu u waday Meja Deeqo xilli hore ayuu bilaabay. marka aad fiiriso madaxweynaha dalkani Kenya, madaxweynihii hore dalkani Kenya Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga, ololaha doorashada markay ka dhiman tahay dhowr isbuuc ayuu madaxweynaha Kisumu intuu tagay ayuu ololaha Raila hala doortay yiri, laakiin January lama bilaabin ololaha doorashada Raila Odinga waa madaxweynihii hore dalka Kenya iyo madaxa Azimio. marka si lamid ah Ali Rooba oo kale wuxuu imaaday isbuucii ugu dambeeyay ee ololaha doorashada, laakiin Aadan Bare waa kan aan ku yiri isagoo xitaa wasiira oo u tagaya ciidamada difaaca ka howlgalaya dalka Soomaaliya ayuu weli intuu soo laabto ololihiisii waday. marka taas ayaa keenaysa maadaama ninkan uu u dhiiranaa u taagnaa
isaga si toosa ugu geenaya culimmada, isaga si toosa taageernimadiisa u muujinaya, isaga si toosa ugu ololeynayay, taas ayaa maaragtay suurtagelinaysa in la yidhaahdo waa project uu wato aadan bare. laakiin aadan bare isaga waxa uu codbixiyaasha u sheegayay mar walbaba in qofka isaga uu aaminsan yahay inuu yahay qofka kasoo bixi karaa Garissa Township deegaan baarlamaneedkiisa, howlihiisa iyo siduu isaga u maamulayo, oo aada loo maaragtay loo ammaanay inuu yahay Meja Deqo. hagaag waxaan rabaa dhegeystayaasha inaan fursad u siiyo intaan dhegeystayaasha u gudbin. waxaan eegaynaa caqabadaha ka jira deegaan baarlamaneedka Garissa Township ama musharaxa soo baxa, waxyaabaha horyaalla ee la doonayo inuu wax ka qabto. haddaan idin xusuusiyo, doorasho ku celis ayaa maanta ka socoto deegaan baarlamaneedka Garissa Township. ilaa iyo 6 musharaxiin ayaa ku tartamaya. musharax xisbiga UDM Maxamed Barrow Deqo ayaa la yiraahdaa. Nasir Maxamed Dulaal xisbiga UDM ayuu ku tartamaya. Ibrahim Malow waxa uu ku tartamaya xisbiga NARC Kenya. Muxudiin Cabdirashiid DAP Kenya ayuu ku tartamaya. Cabdi Faisal Amin xisbiga ODM ayuu ku tartamaya. Cabdikariim Cusmaan Ratin xisbiga DP ayuu ku tartamaya. doorashadaasi ku celiska ayaa Garissa Township ka socota. kursigan deegaan baarlamaanka Garissa waxa uu banaanaday kadib markii xildhibaankii hore ee deegaankaasi waa Garissa Township Aadan Bare Ducaale loo soo magacaabay inuu noqdo wasiirka wasaaradda arrimaha difaaca dalka. aanu imaana Yunis, xildhibaanka kusoo bixi doono 6dan hadda aan sheegay midkii doona ha ahaada, maxay tahay waxyaabaha horyaalla ee reer Garissa ay ka doonayaan inuu qabto? waad mahadsan tahay. xildhibaanka hadda loo soo doorto deegaan baarlamaneedka Garissa Township waa bartamaha magaalada Garissa. waxyaabaha ugu muhiimsan walow aysan ahayn howlaha dowladda xildhibaanka laga rabo waa arrimaha biyaha, oo ay dowladda hoose ku fashilantay dowladihii isku daba xigay 10 sano la soo dhaafayba, maadaama biyaha ay noqdeen howlaha dowladaha hoose ee county governmentka. marka arrimahaas biyaha, arrimaha dhulka la xiriira, dagaalo fara badan baa dhacay, dalil fara badan baa dhacay oo aanan weli ilaa hadda xal laga gaarin, oo aanan la cadaynin xitaa shakhsiyaadkii geystay, oo laakiin la xiriira arrimo dhula. dad dhul laga boobay baa jira oo magaalada dhexdeeda ah. dadka sharciyo uma haystaan dhulka ay degan yihiin, oo title deed male. marka howlahaas ayaa kamid ah howlaha caqabadaha maaragtay loo baahan yahay in la xaliyo. deegaan baarlamaneedka Garissa Township ma laha intiisa badan caqabada dhanka waxbarashadoo kale. iskuulaad ku filan waa laga dhisay, waa ku yaalaan hadday noqdaan dugsiyada hoose iyo dugsiyada sareba. marka waxaa ku taala jaamacad baa ku taala. marka dhanka waxbarashada TVET baa ku taala, waxaa ku taala Teachers Training College, nursing baa ku taala deegaan baarlamaneedkaasi. marka waxyaabo weyn oo hadda caqabado waaweyn oo soo fuulaya xitaa ninkii xildhibaan noqda hadduu maamul wanaagga yaqaano wax saa usii wajihi kara maaha, waayo tuulo maaha meeshaan oo dadka maaragtay abaar iyo ceelal in loo qoday iyo biyo in loo geeyey iyo in arrimo badan laga caabiyo u baahan maaha. marka baasiriga iyo in dadka uu ku caabiyo waxbarashada, ka bixista waxbarashada, school feeska, waxyaabahaasa ugu muhiimsanaan doona qofka loo doorto kursiga deegaan baarlamaneedkaas, iyo inuu si xoojiyo arrimaha ay ka mid yihiin arrimaha diinta, oo hogaamiyihii ku horeeyay xildhibaankaas uu ku ammaanan yahay muddadii 20kaas muddadii adiga 15 sano, maadaama 4 jeer lasoo doortay. hadduu xilkiisa dhamaysan lahaa 20 sano ayuu dhamaysan lahaa. uu arrimaha diinta ku howlanaa, xitaa walow aysan ahayn shaqadiisa in madaarista oo aanan iskuulaadka dowladda aan ahayn inuu basas u gadeeyey oo lacagta CDF uu kaga bixinayay. arrimahaas ayaa waxyaabaha ay u baahnaan doonaa aan isleeyahay qofka lasoo doorto in uu sii wado, maadaama deegaan baarlamaneedkan uu ka duwan yahay deegaan baarlamaneedyada kale. iyo wadooyinka magaalada iyagana maaragta u baahan in la dhiso, maadaama wadooyin yar un ay laami la saaray magaalada gudaheeda.
marka qaybo badan way ka mid yihiin galbeed buuli madiina dhankan suuqa xoolaha meel badan baa u baahan maaragtay in wadooyin laga dhiso marka in uu la shaqeeyo kenha iyo kura si wadooyin dheeraada loo dhiso iyadana waxay noqonaysaa arrimaha maaragtay howlaha soo food saari doona qofka lasoo doorta inuu la shaqeeyo dowladda hoose maaha dowladda ismaamulka dowladda hoose oo municipality-ga ismaamulka Garissa maadaama ay iyaga maamulayaan bartamaha magaalada Garissa